السلام عليكم وسلامتين دمانتين waxaan rabaa inaan videogan kaga hadlo sida loo soo dejiyo call manager markaasna loo dhiso call manager server Cisco call manager oo loo isticmaalo taleefanada kambaniyasha waxay u isticmaalaan taleefanada iyo Jabber oo lagu chaado marka horta call manager ina gidati waay so marka Cisco website aadid ma heli kartid software la kicin karo ISO file oo la kicin karo oo laga dhigi karo virtual machine kuma siinayaan marka serverka gidatid leeyahay ku soo dirayaan VM key oo jaadisan oo u baahan leh in la daaro markaas configuration ka la gelgeliyo laakiin haddii rabtid inaad hoos ka soo dhistid waa inaa soo dejisatid image aan la kicin karin oo ah non bootable markaasna aad ka dhigtid bootable marka arrintaas sida loo sameeyo internetka ka raadin kartaa just hadaa internet search gelisid Google oo tiraahid make bootable ISO markaas way ku sheegay software waxa jiro ay tahay inaad gadatid oo markaas ku sameeynaa howlahaas waxa kamid ah software-hadaas midkan camal oo la yiraahdo isheega ultra ISO I think ultra ISO la marka waa gadan kartaa 25 adiga $30 camal waa ama internetka ka heli kartaa hada baarbaartid okay marka Cisco website aadey markaas waxa aadeysaa isheeg software download markaas software-ka marka call manager wuxuu kaga jiraa downloads unified communications call control unified communications call manager and then unified communications manager version 12 kan ugu dambeeya waa kaas laakiin waa kuwana versionadii hore oo ii sheeg all releases hadaa tiraahid uu kuu sheegaya waa ka 12.5 laakiin haddaa macnaha rabtid kuwa hore waxaa aadeysaa inta markaasna waxaa leedahay waa kuwana kuwii hore oo dhan laakiin annaga waxaa maanta dhisaynaa kan ugu dambeeya 12.5 markaas waxaa aadeysaa call manager updates waa kana marka ISO fileska oo serverka laga sameyn karo laakiin waa ujeedaa horta laba nooc waaye ISO fileska badanaa labadaas nooc waxaa waaye ii sheeg restricted iyo unrestricted US export restricted full encryption leeyihiin kuwan waxaa ka dhigi kartaa taleefanada secure markaas encryption ay u yeelayaan encryption markay u yeelaan markaas taleefanka lama dhageysan karo unrestricted waxaa waaye kan US export unrestricted waa u dhoofin kartaa wadamada kale laakiin waxay u dhoofin kartaa ii sheeg wadamada aan rabin inay kambaniyasha qariyaan callskooda macnaha telephone callskooda marka kuwan laakiin wadamo loo gol yahay jiro wadamadaasna waxaa waaye badanaa wadamada heshiiska la Mareykanka marka waa non bootable sida uu sheegay ISO file-kan soo ma jeedo .iso inay ugu dambeyso ma kicin kartid VM kama dhigi kartid marka inaa bootable ka dhigtay waa adiga marka jaani waa soo dejiyay kan bootable-na waa ka dhigay marka waliba waa ku upload gareeyay ESXi isheeg marka hadda VM-ka inaa kiciyay diyaar u tahay memory-gi iyo CPU-gi iyo waxyaalahaas dhan waa ku daray marka haddaan daaro power on marka hore marka hardware-ka fiirinay waxay ISO-ga file-kaas inuu ku shaqeyn karo server-kaana fiirinay marka call manager ugu yaraan wuxuu u baahan yahay 80 gigabytes oo space ah iyo 4 gigabytes oo memory ah iyo 2 CPUs marka waa kana marka wuxuu weydiinaa meeshaan to begin testing disk found wuxuu soo helay image-kii
marka ma rabi inaan test gareeyo because java ogahay inuu yahay iso fiican. hadda marka detecting server hardware wuxuu fiirinayaa marka VMware past detection validation, so wuu soo helay memorygii iyo CPU-gii uu rabay. marka hardware setup complete, marka wakaasa Cisco Unified Communications Manager imagekaas uu soo helay. okay baa leeyahay versionka wakaasa version 12.5. marka waka this wizard sets up initial configuration of the platform. marka stepskan just waa buuxbuuxinaysaa, ma upgrade garaynaysaa buu leeyahay, maya baa leeyahay. basic installation waaye. marka meesha joogtid time zone-ga dooruu leeyahay, waxaan joogaa East Coast. wakaasa wuxuu leeyahay marka speedka wireka iyo hanaanku traffiga u wado waa full duplex. hadda wax half duplex ma jiraan ba anymore. I mean way jiraan laakiin you know servers oo half duplex wax gadanaya male. marka MTU size-ka waxaa waaye frameka wireka dhex maraya intuu leeyahay. ma rabi inaan bedelo, operating system default-ga iska qaadaa leeyahay, badanaana waxaa waaye 1500. marka DHCP ma rabtaa ayuu leeyahay, maya. waxaan siinayaa magac iyo IP address oo static ah. waxaa leeyahay example 1 waaye magaciisa. IP addresskiisana waxaa 172.16.40.115. mask waa 255.255.255.0. gateway-gana waxaa 172.16.240.1. boom. DNS ma rabtaa? yes baa leeyahay. DNS Google DNS-kiisa iska gelinaya oo freega. domain name-kana waxaa leeyahay lab.local. alright, kasii soco. magaca marka waxaa leeyahay waa example user 1. password-kana waxaa waaye example 1 and then example 1. password-ka wuu diiday. password dheer uu baahan yahay. password dheer. organization waxaa leeyahay lab. unit waxaa waaye tech operations. location waxaa iska leeyahay earth. state-kana US. marka wuu ku weydiinayaa because clusters baa la dhisaa moogtahay. saavaro badanaa isku dari kartaa call manager oo micnaha team ahaan u shaqeynayo. markaas waxay leeyihiin hal server oo publisher la yiraahdo iyo server kale oo subscribers la dhaho oo publisherka ka qaadanayo informationka. marka badanaa marka hore inaad dhistid waxaa waaye publisherka. marka wuxuu ku leeyahay is this server the first node in the cluster? mashiinta ugu horreysay serverka ugu horreeyay miyaa clusterka? waana yes. markaas publisherku noqonaya kan. marka wuxuu u baahan yahay NTP server meeluu waqtiga ka keensado saacadda because waa inuu sadgareeyo saacaddiisa iyo waqtigeeda moogtahay. so waxaan u dirayaa server NTP server uu guriga ii yaallo oo actually ah GNS3 router ku dhex jiro. wakaasa halkaas NTP server baa hayaa. kasii soco. security password waxaa waaye markii clusterka la dhiso serverada kale dhan passwordka ay iskula hadlaayaan waaye.
do you want SMTP marka waxaan waxa waaye inuu serverka email diri karo emailna aad la isticmaali kartid marka email server ma haysti marka no baa leeyahay meeshan marka wuxuu leeyahay smart call home enable inuu Cisco u diro khaladaadka maaragtay errors iyo waxyaalahaas ma rabtaa marka maadaama uu laab yahay ma rabina waxaas diro marka waxa la disable all call home on the system start waxyaalahaas dhan jooji kasi soco application userka waxa waaye ii sheeg qofka configure gareenayo accountiga uu ku soo galaayo oo webka markuu ka soo galaayo applicationka marka kaas waxa leeyahay UCM app UCM app user password kana waa isla password key actually ina screenshot ka qaadaa meeshan si aan u iloobin okay intaas waka marka wuxuu yiri the platform configuration is complete select okay to continue marka okay baa leedahay meeshan marka wuxuu bilaabayaa dhismihi so dhismahan actually wuxuu qaadanayaa 2 hours marka waa iska suuq tagayaa waxaanan isla hadli doonaa markuu dhameeyo installation iska. Assalamu alaykum.